waxa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmaadaa isuma eka harag iyo kitaab marka la leeyahay harag iyo kitaab isuma eka waa maxay halka waliga hadaanad quraanna aqoon wax la qorin wax la akhriin harag iyo kitaab si dhinac yaala hadaad u timaado aqliyan waxaad u garanaysaa inuu kitaabkanu labada shay hadda mid qaadanayso qofku wuxuu qaadanayaa horta kitaabkan bal kol cid la tago ilaa iyo aagana inuu waxaan ka duwan yahay haragga waa cadda Soomaa qaybta hore riwaayada ninku markuu rida wata laxda leeyahay waa lax waxay ka turjumaysaa waa qaybtaas iyo marka uu imanayo hudaalka uu leeyahay shaahi keenay loo keenayo baastada bulshada qusaysa labadaas bulshadeena ayay qusaysaa waayo bulshadeena waa ku tira waxa waa gidaar badan oo sababta koonaya ma hadda waxa waa maxay baad doonaysaa koonaysaa waa qoraxdii ta koonaya ma wada yaxi way jeceliin dadkeena horta sida qof kasto aqli lahaa bulshada ama waxa garanayay sida loo galay bay ka turjumaysaa waa qodob qaybaha kale aan soo dhaafay qaybta imika adi weydiis waa siyaasad waa cadda waa isuma ka haragii kitaabde waxyaalaha ku jira waxa kamida waxaan doortay baan garan waayay ama dambi daa ama sax ahaato waxa weeyaan waa qoomamo oo kale ninka reer u dhashay dadku dhowrayeen dhaxda awrka kaga lumay adigoo iskuulka hoose dhigtay baan dhageysan jiray imika mar dambe ayaan ku arkayay YouTube mar dambe isagoo ayaam bariyuu dhiman doono wax yar ka hor ka yar dib u qaaday baan arkayay laakiin original say idaacada ugu jirtay berga daawasha ma jirine dadku dhowrayeen dhaxda awrka kaga lumay dawladii horta kama ahayn mamnuuc kacaanka wax walba diidi jirtay idaacada way ka bixi jirtay ana ku huba 86 iyo 87 iyo ayay soo baxday oo dhalinyarada ayaa u badneed waxa ku jira baydad ah markuu leeyahay dhabar weyla jiilal dadka oo la dhalay ma adiga tacliin dhigan caashaqa ku dhaga tiray waxa uu ka dhigan yahay dhabar weyla jiilal dadka oo la dhalay oo laba habeen dhaxa ninka reer u dhashay dadku dhowrayeen dhaxda awrka kaga lumay meel kala soo socota dhalintii waxa hooday sidii dhade arooriyaan maxay u dhuubnida jacaylka marka adiga macna kala jeey sameeynaysi anigu saasaan u arkaa ina qaybta hore bulshada ka turjumaysay marka halkan iyo kitaabkan dadka u bayaamiyo macni waxaan leedahay yani ari kuma duugna ama wax lagu tawareero maaha inay siyaasad ka hadlayaan marka horta jawaab baa weyn marayna wuxuu leeyahay ninkii aanu dooranay aanu ninka ka raabnay mee magaciisa sheeg ninka wuxuu ku oranayaa war ma ahayn naag bay ahayd nin bay ahayd suldaankii buu weydiinaya anigu ninka ma helaya ma aqaan magaciisa waa niyare dhaaf suldaankiisii buu la hadlayaa wuxuu leeyahay gabadh bay ahayd inankiisii ayuu la hadlayaa wuxuu leeyahay wuxuu ahaa gabadh soo maaha lagu sheegaya laxda waxaas oo dhali horta way caddahaadoo taasuna waxay qusaysaa baarlamankan maanta aynu dooranayno in la iska hubsado oo sidii kii hore aan nambaris iyo reer hebel la dhinac orod ay waxay rasiin la doortaan ayaa u caddahay kow qaybta kale anigu ma ariga wala sheegayay ma waan daawaday qaybta wiilaya maxaa dooratay waxaad doortaan garan waaye waa siyaasad laakiin ma qabo inay tahay matalan doorashadii madaxtooyada kale laakiin wargolayaashii deegaanka iyo baarlamanka dadka ay dooradeen ma haynade anigu inay sidaa uga fikiraya ay ku saleeyeen baan u arkaa de waana riwaayad aad u qiimo badan reer waliba wuxuu isweydiinayaa
ilaa anigaygan kula hadlaya annaga badde xildhibaan baa noogu jira dee golaha gawladi ilaa markii la doortay ilaa maanta anigu meel uu ka hadlayana ma arag meel reerihiina waa u tegayoo dee meeluu jooga maanu arag reer walbana saasuu uga maqan yahay ciddii ay doorteen markaa in la yidhaahdo gabadh baynu dooranay iyo nin baynu dooranno wixiiba la ysku qabto oo dee madow ay galaan ayuunbay ka hadlayaan